السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada janalka Qaalin Media. haddaad tahay daawado cusub ee rukumo kanaalka oo subscribe-ta ku dhufo, haddii aad hore ugu jirtana like-ta iyo comment iyo share-ka la dhac. tani waa Istanbul, waa magaalada ugu weyn adduunka oo leh dhul ku yaal laba qaaradood ee Yurub iyo Aasiya. in ka badan 15 milyan ayaa ku nool halkan, taas oo ka dhigaysa magaalada toddobaad ee ugu weyn Aasiya iyo lambarka koowaad ee magaalada ugu weyn Yurub. sidoo kale waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan ee caanka ah oo ina bini'aadan dhisay. waxa ay caasimad u noqotay 3 boqortooyo oo waaweyn oo taariikhi ah oo kala ahaa Romanka, Byzantine iyo Uthmaniyiinta, waxayna ahayd magaalada ugu weyn adduunka. 2 goobood oo taariikhi ah oo kala gooni ah intii lagu jiray qarniyadii 7 iyo 17aad. maanta ku dhawaad hal ka mid ah 5 Turkiba ayaa nool. magaalada Istanbul waxa ay ka badan tahay kala badh ganacsiga Turkiga, waxaana ay leedahay dhaqaale ka weyn dhammaan koonfurta Afrika. inta badan awoodda Istanbul iyo saameynta ay ku leedahay adduunka waxa ay salka ku haysaa juqraafiga magaalada iyo goobta istiraatiijiga ah ee aad u fiican. waxa ay si toos ah u ag taagan tahay Bosphor, oo taas u ah marin biyood cidhiidhi ah oo kala qaybiya Yurub iyo Aasiya, iskuna xidha badda Madow iyo Aegean iyo Mediterranean. taariikh ahaan waa dariiqa kaliya ee suurtagalka ah ee Bulgaria, Romania, Ukraine, Georgia iyo qaybta koonfurta galbeed ee Ruushka ay isticmaali karaan si ay u gaaraan badda Mediterranean-ka iyo caalamka. badweynta adduunka oo halkaas ka soo baxa Suez ama Gibraltar midkood. marka sida iska cad, Bosphor waa mid aad muhiim ugu ah dhammaan wadamada ganacsiga caalamiga ah, laakiin gaar ahaan Ruushka. saliidda labaad ee ugu dhoofinta badan adduunka oo ay tahay in ay ku dhawaad dhammaan qaybahooda ka soo dejiyaan badda Madow ee weli diiran oo aan baraf lahayn sanadka oo dhan. Bosphor asal ahaan waa dariiqa kaliya ee maraakiibtan waaweyn ee saliidda Ruushka ay ugu soo baxaan badaha adduunka, laakiin cidhiidhiga ayaa muhiim u ah daraasiin dalal kale. sidoo kale taas awoodeed Danube kani waa webiga labaad ee ugu dheer Yurub iyo afkiisa waxay si toos ah ugu taalaa badda Madow. webigu wuxuu si toos ah ugu socdaa kumanaan kilomitir. magaalooyinka muhiimka ah ee Yurub waxay ku nool yihiin Vienna, Bratislava, Budapest iyo Bulgaria. ilaa 1992 wuxuu sidoo kale si toos ah ugu xidhaa webiga Rhine iyo dekedda Rotterdam, xudunta ganacsiga ugu weyn Yurub. maraakiibta xamuulka qaada ee isaga kala goosha Shanghai oo ah dekedda ugu mashquulka badan Aasiya iyo Rotterdam oo ah dekedda ugu mashquulka badan Yurub waxay mar walba si dhex mari doontaa kanaalka Suez. kadibna mararka qaarkood waxay dooran doonaan inay sii maraan Bosphor una sii gudbaan Danube ilaa Rhine kadibna ilaa Rotterdam. waxaas oo dhan waxay gacan ka geystaan saameynta marinbiyoodka Bosphor, mid ka mid ah wadooyinka ganacsiga ugu mashquulka badan adduunka oo dhan, iyadoo 3 jeer ka badan taraafikada ganacsiga sida kanaalka Suez uu arko. waxayna Istanbul ka dhigaysaa mid ka mid ah dhulka ugu badan goobaha istiraatiijiga ah. si kastaba ha ahaatee, Turkiga laftiisa ayaa faa'iido yar ka helaya hantida maanta. dhab ahaantii waxay ka sameeyaan $1. ma ogolaan karaan maraakiibta dagaalka ee xulafada qaarkood si ay u hagaajiyaan dhammaan. Turkigaas ayaa qorsheynaya inuu bedelo Istanbul oo ah kii ugu weynaa iyo kan ugu weyn. waa tan sababta
1923 kadib dagaalkii koowaad ee adduunka ee dagaalkii xornimada ee Turkiga. Jamhuuriyadda cusub ee Turkiga waxay saxiixday heshiiskii Lausanne, taas oo ka xoreeyay cariiriga Turkiga una furay gaadiidka rayidka ee badaha. Balse 1930 kicitaanka faashistaha Talyaaniga iyo gumaysigiisii oo sida baahsan oo ugu faafsanaa xeebaha Turkiga. Xaaladda juqraafiyeed ee Mediterranean-ka ayaa si weyn isu bedeshay. Turkiguna wuxuu damcay inuu bedelo shuruudaha Lausanne. Tani waxay si toos ah u horseeday heshiiskii Montreal ee 1936 kaas oo uu suurtageliyay Turkiga inuu dib u soo celiyo ciriiriga si uu isaga ilaaliyo Talyaaniga, waxayna si weyn u xadiday awoodaha aan madowga ahayn ee ku xiga inay soo diraan maraakiib dagaal, iyada oo sidoo kale damaanad qaadaysa marinka xorta ah. Dhammaan maraakiibta ganacsiga ee rayidka ah waqtiyada nabadda iyo dagaalka labadaba iyo Turkiga laga mamnuucay inay weligooda awoodin inay qaadaan wax kasta oo lacag ah ama qarash ah. Waqtigaas waxay ahayd wax weyn oo ku saabsan Turkiga, sababtoo ah waxaas oo dhami waxay damaanad qaadeen dhexdhexaadnimadooda dagaalkii labaad ee adduunka, waxayna faa'iido u ahayd Midoogii Sofiyeeti, sababtoo ah waxay ku dambeyn doontaa ka hortagga wax kasta oo maraakiibta dagaalka ah si ay u awoodaan inay galaan badda madow gebi ahaanba dagaalkii labaad ee adduunka. Taas macnaheedu waxa weeye waxa ay ka hor istaagtay quwado kale oo aan ahayn Turkiga in ay weligooda awood u yeeshaan in ay maraan maraakiib dagaal. Marka Turkigu waxa uu ogaa in aanay iska caabin karin cadaadiska Midowga Sofiyeetka oo kali ah, sidaas darteeda 1952 waxa ay go'aansadeen in ay ku biiraan gaashaanbuurta NATO, taas oo sii kicisay falcelinta Sofiyeetka ee ku wajahan ciriiriga oo hadda si wax ku ool ah ugu jira gacanta cadowga dagaalka qabow. Laakiin Mareykanku aad uguma faraxsana habeenta. Sidoo kale maraakiibta dagaalka ee aan ahayn wadamada madow ee maraakiibta dagaalka ayaa si aad ah loo xadiday inay weligooda isticmaali karaan phosphor, oo ay ku jiraan maraakiibta Mareykanka ee leh calibriska qoryaha ka weyn 8 inji ayaa ku jira liiska mamnuucidda si ay u soo wareegaan. 1960meeyadii Mareykanku waxa uu soo diray maraakiibta gantaalaha. Ruushka dabcan wuu ka dhiidhiyay arrintan, laakiin Turkiga ayaa si guul leh ugu dooday in gantaalada saaran maraakiibta Mareykanka aysan dhab ahaantii ahayn hub, iyo in maadaama hubkan uusan jirin 1936 markii heshiiska la saxiixay aysan qayb ka ahayn xayiraadaha. Si kastaba ha ahaatee, axdiga weli waa caqabad ku dhisan dhismaha ciidamada Mareykanka ee badda madow. Waxaan ula jeedaa ciidamada badda ee Mareykanka meel kasta oo ay joogaan waxayna jeclaan lahaayeen inay boqolkiiba boqol gaaraan guusha ay ka gaareen badda madow sidoo kale. Laakiin Montreal waxay xadidaysaa awoodooda inay u soo diraan maraakiibta waaweyn ee muhiimka ah iyada oo loo marayo Bosphor, sida kuwa qaada diyaaradaha iyo kuwa quusta. Sanadkii 1994 waxaa dhaqan galay heshiiskii Qaramada Midoobay ee sharciga badaha, kaas oo si weyn u qeexaya xuquuqda iyo waajibaadka ummadaha ka saaran badaha adduunka. Ku dhawaad wadan kasta oo adduunka ka mid ah ayaa saxiixay heshiiskii, marka laga reebo Turkiga iyo Midowga Gobollada. Xitaa heshiisku wuxuu dhigayaa
Bosphor si toos ah gudaha dhul badeedka Turkiga oo aragti ahaan meesha ka saaraya heshiiskii Montreal iyo siinta Turkiga madax banaani weyn oo ku saabsan maamulidda. mar walba way diideen inay saxiixaan sababtoo ah saameynta sidaas waxay sidoo kale u dhiibi doontaa ku dhowaad badda Aegean oo dhan biyaha dhul badeedka Greega, halka Mareykanku uu si weyn u diiday inuu saxiixo sababtoo ah waxay dhigi doontaa waqooyiga galbeed ee muhiimka ah gudaha dhul badeedka Canada, halka ay ka ahaan lahaayeen biyaha caalamiga ah. sidaa darteed Turkigu waxay si sharci ah weli ugu dhagan yihiin shuruudaha cakiran ee taariikhaysan ee 1936 Montreal ee xadidaya awoodooda inay wax lacag ah sameeyaan oo xadidaya maraakiibta dagaalka ee Mareykanka inay awood u yeeshaan inay galaan badda madow. danaha Ameerika iyo Turkiga labaduba waxay si toos ah ula jaan qaadayaan dumin la'aanta iyo Montreal labadaba oo si ay labadoodaba u helaan doolshadooda oo ay u cunaan. Turkiga aragti ahaan waxa uu dhisi karaa kanaal macmal ah oo si toos ah ugu dhegan marinka Bosphor ee dabiiciga ah. Tani waa sababta oo ah farsamo ahaan shuruudaha xadidan ee heshiiska Montreal waxay quseeyaan kaliya marinka Bosphorka laftiisa, ama waxay ku doodayaan Turkiga isagoo dhisaya kanaal macmal ah si toos ah Bosphorka oo u bedelaya Istanbul lafteeda jasiirad. Turkiga ayaa ku doodaya in laga yaabo in ay halkaasi ka bilaabaan lacago canshuur ah oo ay ugu dambeyn u ogolaadaan maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Mareykanka iyo NATO in ay galaan badda madow markii ugu horeysay. Tani waa sida saxda ah. waxa uu Turkiga qorsheynayaa inuu ku sameeyo mashruucooda weyn ee kanaalka Istanbul, kaasoo hadda bilaabay dhismaha dhowr bilood ka hor bishii Maarso 2021. qorshaha hadda waa in la dhiso kanaalka 30 kilomitir galbeedka Bosphor ee Yurub dhinaca Turkiga oo ka dhig 45 kilomitir cidhif ilaa iyo cidhif. Marka la barbar dhigo kanaalka Suez, wuxuu dhererkiisu ku dhow yahay 200 oo kilomitir marka laga eego dhinaca injineernimada. marinka Bosphor gabi ahaanba waa la sameyn karaa, laakiin Turkiga wuxuu sheegay sababaha loo dhisayo kanaalka. Si kastaba ha ahaatee, waxba kuma laha in laga gudbo heshiiskii Montreal oo ah mid ka mid ah marinada maraakiibta ugu mashquulka badan adduunka. marinka ugu horeeya ee Bosphor ayaa had iyo jeer si weyn u cidhiidhi gala gaadiidka. in ka badan 41,000 markab ayaa mari doona cidhiidhiga marinka every year, iyo marka ay maraakiibta imaanayaan sida caadiga ah waa in ay biiraan safka oo ay sugaan celcelis ahaan 14 saacadood si ay u dhex maraan. mararka qaarkoodna waa in ay sugaan maalmo marka ay si gaar ah mashquul u tahay. boqolaal maraakiib ah ayaa si dhab ah u fadhiisan doona meel ka baxsan cidhiidhiga waqti ay sugayaan inay markooda soo maraan. taasina waa intaas oo dhan iyada oo nacas qaar ka mid ahi markabkoodu ku nuujinaya gudaha.